wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Xagle Toosiye iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay magacaabista gudida caafimaadka ee gobolka Gabiley waxaana goobjoog u ahaa barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi Deeqsame barasaabka xigeenka gobolka maayarka degmada Togwa Jaale Aadan Muuse Cilmi Aadan Shiine xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaaladani waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi iyo maayarka xigeenka degmada Gabiley waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta inoogu yimi safar shaqo wasiirka caafimaadka si uu inoogu balaysimo ama uu waxa weeyaan dhidibka inoogu taago gudida cusub ee caafimaadka ee gobolka oo uu wasiirku dhawaan ku dhawaaqay gudidaasi oo loogu talagalay in ay u adeegto baahiyaha caafimaad ee gobolka ka jirta wasaaradana ka caawiso gobolkana ka caawiso kolley gudidan haddaan eego waa guddi aan cidi u maqnayn ayaan odhan karaa hadday tahay madax dhaqameedkii gobolka oo boqorka ku jiro iyo suldaanku ay ku jiraan suldaanka naga maqan Suldaan Ibrahim Jaac Samatar aqoon-yahankii xildhibaanadii golaha deegaanka haweenkii ganacsatadii culimaawidiintii dhammaan gudidan waxa ay ka kooban yihiin bulshada madaxyadeeda kala duwan ayay ka kooban yihiin runtiina waa gudi lagu soo xulay aqoontooda iyo kartidooda iyo karaamadooda ay ku dhaxleeyeen bulshada gobolka Gabiley in hawsha caafimaadka ee gobolka u idmaday ay nagala shaqeeyaan oo gobolka kala shaqeeyaan oo wasaaradda kala shaqeeyaan oo waxa weeyaan sidii aan kor ugu qaadi lahayn caafimaadka gobolka qiimaheegana way leedahay gudiga caafimaadka ee gobolku waa runtii hawl weyn oo loo baahnaa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaa wasiirka iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay wasiirka waliba aad baan ugu sii mahadcelinaayo marka gudi la sameynayo gobol inta faraha badan leh waxaan aaminsanahay inuu runtii isagu uu hormood ka yahay wasiirro badan oo dambeeyaana runtii ay ka daba iman doonaan waayo wasaaradda badan baa ka shaqeeya gobolka arrintani markaa maanta meelo badan bay runtii wax tusaysaa ama meelo yar seexday wax toosin doontaa insha Allah sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gabiley Dr. Jimcaale Daahir Cumar Obsiyo iyo mid ka mid ah gudida la magacaabay oo mahadnaqay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland marlabaadka waxay mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka maayarka xigeenka degmada golaha xildhibaanada oday dhaqameedyada salaadiinta aqoon-yahanka gudida caafimaadka gobolka Gabiley ee maanta aynu daahfurayno ee wasiirka caafimaadka inuu daahfuri doono dhammaantiin waxay ku salaamaysaa way fududahay laakiin xilka aad qaaday sidaad uga baxayso ayaa waajibkeega lagaaga baahan yahay annaga xil weyn baa la fuulay xilkaana fuulayna koow cidaan ku taageersannahay eenu garabka isku qabanayno eanu gacan ka doonayno ee haddii aanu hay'ad wax uga baahano ninkii noo bushkarayn lahaa haddii dawladaan wax uga baahano noo bushkarayn lahaa haddii aanu ganacsato wax uga baahan lahaa noo bushkarayn lahaa gacantana siin lahaa waa wasiirka wasiir culays baanu kuula iman dad xilkaa noola timaadeen annaguna culays baanu kuula iman gabadhii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Xagle Toosiye waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan farxad weynayaa maanta inaan kasoo qayb galo xafladan aynu ku daahfurayno gudida loo sameeyey caafimaadka gobolka muddo dheer baan iminka arrintaa kasoo shaqaynaynay ilaa barasaabkii hore ilaa maayarkii hore markii aanu aragnay baahida jirta waxaa lagama maarmaan noqotay in uu gobolku helo guddi caafimaad maanta inoo hirgashay intii hore way dhici weyday waan ugu mahad celinayaa isuduwaha Jimcaale Dr. Jimcaale iyo barasaabka iyo maayarkaba iyo intii kale ka soo shaqeysay in gudidani ay dhacdo
oo xulashadeeda iyo sidii loo heli lahaa guddi tayo leh ayaa muddo 2 sano ku dhow nagu qaadatay sababta keentay in la helo guddi wasaaradda ka kabta baahiyaha caafimaadka gobolka sida boqorku sheegay gobolkan waa gobol degan dadkiisu degan yahay oo aanay guurguurin baahi caafimaad badanna ay ka jirto waxaa markaa guddidu ay nagala shaqayn doontaa haddii alla ka dhigo daboolista baahiyahaas aan cabdi ciise muqbayaha xarta Space Channel gobolka Gabiley.